yahay ama aasaas u ah tawxiidka aasaas u ah qaybna waa wax la shariicada shariicadu waxay ku taagan tahay cibaadaadka waxaa tusaale kamid ah salaada soomka xajka iyo wixii la mid ah qaybna waxaa la yiraahdaa waa mucaamalaadka waa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee aad dadka kale ee muslimiinta ah iyo makhluuqa aad kula dhaqmayso diintu waa mucaamalo qodobka ugu muhiimsan diinteenna ee aas-aaska u ah waa dhaqanka qofka ee ka turjumaya qofka diintiisa iyo wanaagiisa iyo mabaadi'diisa ka turjumaya weeye waxaan rabaa mawduucan waxaan u doortay usbuucan gudihiisa ama muddo hadda yar oo kooban ayaa waxaa dhacay 3 arrimood oo waaweyn oo magaaladan iyo magaalooyin kale oo Soomaalidu joogan ka dhacay qiso 2 bari ka hor Soomaaliya ka dhacday iyo qiso ka dhacday magaaladan aan joogno ayana 2 bari ka hor iyo qiso muddo bil ka hor magaaladan ka dhacday 3 qiso yaa rabaa 2 kamid waliba oo labada waaweyn oo xadadka ah inaan soo qaato oo ka turjumaysa mucaamalada iyo dhaqankeena aan markaas ku fiirino ma diin baan leenahay mise diin ma lihinoo diin la'aan baan nahay haddaan Soomaali nahay waxaa dhacday 2 bari ka hor nin muslim ah oo Soomaali ah oo aabba ah ayaa gabar uu dhalay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya mid kamid ah gabar uu dhalay oo 14 sano jirta ayuu meel guriga kamid ku xiray qisadan waa qiso marka aad dhageysataan dadka qaarkood ay ooyi doonaan xaqiiqatan sababtoo maalinta aan maqlay ilaa iyo runtii maantadan aan idlahayo qalbigay way ka bixi weyday مواضيع بدن بين وبهانتها إن لقد ديارية قبل يوم ما يلقوا حراي قبل هويدا لما يجوجنا وحيل جوجتي أسرع يحاس كلو قبو مركزوه وحاس كيسي كيري قبل ناس مفهول كرتيد عنتنا مسين كرتيد بيانا مسين كرتيد أسرع وسكتري قبل ماشي ويكون حرايد وحيدا يسيبها لي دبيو دبيسة u dhahaysay bay gabadhii suuxday gabadhii marka ay suuxday isbitaal baa la geeyay way dhimatay waa maanta 3 bari ka hor waxay dhakhaatiirtii dhahaan gabadhaas xargihii uu ku xirxiray baa dhiigii kala xiray markaasay gabadhii waxay u dhimatay rafaad iyo silic bay u dhimatay 14 sano jirta qofka saas u galayna waa aabaheed way waxa dadkii baa laba u qaybsamay qaar waxay dhaheen ninkan hal la qabto oo hal la xiro oo hal la dilo oo gabadha xaqeedii hal laga gudo qaar waxay leeyihiin baa la yiri waa aabaheeda maxaa idin ka galay iska daaya waa aabaheeda afaarahooda ka baxa bay leeyihiin قصة سويد عضي وحين على 3 bari ka hor قصة labaad magaaladan aan joogno ee Minneapolis ayaa waxa ka dhacday nin xaaskiisii uu furay waa his ex wife way oo ilmo u haysa oo reer oo degan oo nin kala qabo wuu gurigeedii tagay wuu soo booqday ilmihiisii baa joogo soo booqday ilmihii buu seexiyay intuu gabadhii xirxiray oo uu ceejiyay buu dilay gabadhii markuu intuu ceejiyay uu dilay ayuu intuu jiiday buu wuxuu geliyay daaha guriga ku xiran gadaashiisa ayuu geliyay telefoonkeediina waa damiyay kiisiina waa dansaday wuu carray baabuur buu qaatay xuduudka Canada buu galay anugii yaraa oo subaxii soo kacay oo hooyadii raadinayo oo guriga hoolweeyadiisa banaanka ooyaya
يا درس كعقبتي قولي بقى لقي هو يمجوكتو ضد كذب على وعي قبل ما أنا أرق ولا راديي قبل ولا واي قولي بقى الفيريي مسداها قداش تيكو جرتا يدو ميدة أو حرحران أو عيجسن ننكي ديلي انتو اسكبحي أو بابور قاطي أو حدودك كندا طلابي يمركو كندا كبقود بحدودك بوسيل فونكي سي دارتي سوء وشاكي وحسوها هايستان مركي إنو عيد قلق طبعا بوليس بقى الله وعي والريبوت قري بوليس كيبا راديني التلفون كسمركو فريوي هلكبتر بقى لوكعي ولا ساقبتي ولا ماذا قصو أو قلنا حدين تبضنا أو أسبوعا لحديثي دعيوي وحان مركز موضوعا إنا ما أنت فيريو دين إسلامكو هدانا هاي إنه ضد مسلنا دينتو معها عبادة كلية منا أها قفك وحا كم مغضاء كلية منا أها وحا أوليه وأن آمن سنهي منا أها مقعيسة دينتو وقفك لقن كيسة الله وحوليه تبارك وتعالى قرآن كأسوا أردها كشاكينية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كاليا أن إذن كو أخريو أن إذن شاغو وحي ربيين وإذن وحيودي أو إذن كحرام يالي أو إذن ديدي أن إذن شاغا كاليا سو الله دهيا قل حتى النبي عليه تعالوا كاليا ددو كاليا سو أرورا أتل ما حرم ربكم عليكم أن إذن أخريو وحي ربيين إذن كحرام يالي إذنك ألا تشركوا به شيئا إذن الله الشرك أصمينوه والتوحيد كفيري وعقيدتي وبالوالدين إحسانا والد كينا إن إحسان يوناك أصميسان المعاملة الحسنة رقم في عن والدك كران رقم ولا تقتلوا أولادكم عرورتي نهدلنا إذنك أو كبقية إن أعنتأت سيسان أذويدان عرورتين هدلنا نحن نرزقكم وإياهم أنك إذنك أيقظ أنك إذن إرزاقين وحان مقلي منك قبل يسد لي أفل إتومس سنة جلك سببك وكد لي أو سببك وقد لي وحو هذا الليري أبتيجي تقولي سي انتي تكتبي عنتك دونتي سيد وآذي كرتا قرية أبتغى بوحر حري قبضاس وإلمية أولاري قاعدة هاي سيستا كم وقت إلهي وحولي هاي عرورتين هدلنا إلمها عادشين هدلنا هكبقينا قاعدشو هكبقينا إنا تكورين ويدان وحديع كرتا إلمها ديل كودو إنو نغضو فيسيكال إن إلمها سي عادية لو ديلو أما إن معنويا إلمها لو ديلو أما إن أخلاقيا إلمها لو ديلو وحان أركي والله ضد هويوينا أو إلمهوذا أي كنو ليهين ميلا بابليك هاوسينا أو كان حيسيد أو مدو لحظة ضاء أو ليسكو ديليو أو دراغة الوكالة إيمينيو ومركا أرتي الله يابيسيد وحي كلها داده إلمها ميشا بعد كلا عرتي شكشن أيد بان هايستا أما بابليك هاوسين ويهي هاوسين كا درتي بان ودقناها ونكا هذا وشقيا وجوغا وحي أودا إن القري كريسطو ونكا الميسا وكراكا بحسنا بأودا أريكا سمينا نهين الميه ولا الدلي ها والميه ولا الدلي الله وحولي هاي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هاو دوانينا حمانتا تم وقتئية تقرصون بقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نفت الله حرام يلها الدلنا هدان حق القدلنا حق درها كدلنا لا في ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ودردارا كالله إذين دردارنا وحادع كرت إنا بلوانا قادتان إنا دوح فهمتان دردارا كالله لقيستا والله آيضان هذا دادك فهمي لهايين وكل رقمي لهايين نلشين وإسبدلي لهايين لكن كانوا اسبدل لها الله وحله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
ilmaha agoonka xoolihiisa ha taabanina ilaa uu gaaro qaangaar oo qof xoog la uu noqdo oo la siiyo xoolihiisa wax wanaaga aan ha ku taabanina iska ilaali xoolaha agoonka iska ilaali alla wuxuu leeyahay wa awfu lkayla walmiisaana bilqist waxaad oofisaan miisaanka iyo beegga si cadaalad ah markaad wax gadayso ama aad wax gadanayso ood wax beecinayso dadka mucaamalo wanaagsan kula dhaqan laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha qofka hadduu dadaalo ilaahay kuma kallifo wuxuusan awoodin wa idaa qultum facdiluu markaad hadlaysaana cadaalad sameeya haddaad hadlayso cadaalad ku hadal wax wanaagsan ku hadal ha xadgudbin hadda waxaan arkaa wax laga xishoodo dad walaalo ah oo muslimiin ah oo hooyooyin ah oo aabbayaal ah oo intay soo fadhiistaan social mediaha caytamaya oo dad kala caayaya oo xadgudbaya oo qadfaya oo qabaa'il caayaya alla wuxuu leeyahay wa idaa qultum facdiluu markaad hadlaysid dadka mucaamalo wanaagsan kula dhaqan hadal wanaagsan kula dhaqan وبعهد الله أوفوا بلنت ألنا أوفيا وحن نوى معاملات كوا إخواني قصوا الله وحليه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ساسو الله إذين دارمي سيأد أوانا قادتان وحفهنتان مكاسو الله وحليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وضضي ذي توسم وتاسقاتا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هقاذنا ودوين كلا أو وضنا ألا أيد كفريس ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ساسو الله إذن دارمي سياد الله قبغدان انت صدنا وحي عضيني سادينت ومعاملة وحاد في رسام حديث إمام البخاري أولي حديث أبو هريرة أي النبي حليه صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها فدخلت فيها النار قف دمر النار وحي كوكا شيء مكلال أي حرتي أما بيصد أي حرتي أو النار أي كوكا شيء وحلية لا هي أطعمتها ولا سقتها ما أين قوذن بينا ما أين سين إذ حبستها مركي حرتي ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض هيسكعون تقشن كذا من أيدين ويحرتي إلى أي كلمته محال لين إنسان معاملة حيواناتك بالذ الله يسفي عن أن أرد قنة قفك إلمه أولي انتي أحري إلى أكد انتي دلي محال لين إنسان وحلقها الله وحوايه قف مكلال حري إلى أي كلمة محاضر ملينا ساقف حري الماء دلي إلى أكد انتو وسبحان الله الدين المعاملة دين توا نقن وحن مغلى يكون معلمين معلم واي دين بو دغيا أنا بسوء قراعي انتو حري ودلي ودقن كإسلام لماذا النوع عصوامحي دين تو ما دقن با مثل دينتو وحل الشيكتا إيو صلاة إيو عبادة ويكلية دينتو عبادنا ويلادها عقيدنا ويلادها دقنا ويلادها النبي صلى الله عليه وسلم حديث كله بخاري أوريه ولو حديث كان هذا الشيء بخاري مسلم أوريه ومتفق عليه وحان لقوريه عبد الله بن عمر بالقوري حديث كان هذا الشيء أبو هريرة يعني وحديث كعبد الله بن عمر متفق عليه أو حديث كمكلاشة حديث كأبو هريرة لقوريه بخاري لفظي سوحوي بينما رجل يمشي من صعنية ميل بادية أمرية أو صعنية فاشتد عليه العطش رأون حم باقبتي هراب باقبتي فنزل بئرا عيل بو قلي فيري فشرب منها وكسر علي ثم خرج وصابحي فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى وهو أركي أي هراهيرونيا أو عيد عنيا عيد عيلك دوشي ساعة ويقوقين تهي مركي أي جيبا وحكر هذينيا بيو عيدي ولا لفيا فقال وحجري لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي من العطش أنكي أنيجا إيهاي أو كلبا هيا فملأ خفه عيل كيبو قلي أو
كبيسي بوتك أما خفكيسي مصوبوحي فأمسكه بفمه بفيه أفكو كسو قاضي فأمسكه بفيه أفكو كسو قاضي فسق الكلب أيجيب ورابيه فشكر الله له فغفر له الله كل شكري وأدب بالآفر وربحا جنة وكوكالي لقن كي وناك سنة ايغا وكران أغمي ايواي وحلقها الله الدين المعاملة دين توا لقن بني آدمك صاد ولد أغميسين بالفيري صاد حاسكاك ولد أغميسين صاد المهاك ولد أغميسين صاد درسكاك ولد أغميسين صاد صاحبدا ولد أغميسين صاد أرضدا ولد أغميسين صاد والدكاك ولد أغميسين صاد معلمكاك ولد أغميسين صاد قناعستدا ولد أغميسين صاد قفك وحكاك قضني ولد أغميسين صاد صاحبدا ولد أغميسين الدين المعاملة وحو النبي يقول ليه صلى الله عليه وسلم حديث كلا والترغيب ترهيبك كسوغان أو حديث كان أبو هريرة أستجن اللي قوريه وصحيح أياه وحو ليه هاي أبو هريرة نبى النبي قويم صلى الله عليه وسلم ما سوحي رسولك إلهي قبل هبلا يلي يراهدو يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها وحال الشيقة صلاة بدني دادا إيا الصوم بدني دادا إيا عبادة بدني دادا إيا صدقة بدني دادا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها لكن درسك عربك كلها سبحان الله غفت كنيس وصوميس وصدقيسانيس وأسطرا وحجابا وقرآنك آخرينيس لكن درسك عربك كلها نبي هي في النار نار بكجرتا متكلال نبي ننكيبا ننكرش بحوية رسولك إلهي هبلايو يذكر من قلة صلاتها صلاة ديدا يربع لشيغي إيا صوم كيدا ير إيا صدقة ديدا ير لكن درس كيدا عربك كما نبتو نبي هي في الجنة جنة دي كجرتا بروحات في رساء قبل حجابا وقرآن كي تقانا وصلاة دي تكنيسا وعبادة سنيسا ودرس كي نبتي بنار قشي عربك ودين المعاملة دين تواتقن ولذلك يا إخواني وحد أركيسان عبادة سنيسو حدينا سامحة لذا عبادة لا تؤتي بثمرتها المرجو منها ما كانتو مرها اللي قرر جينيو مرا مس كانتو فإذا ما كانتو حتى تظهر في سلوك العبد حتى يظهر أثرها إلى رات كيدو كم مغضو في سلوكه العبد الضون كدقن كيسا وأخلاقه أخلاق ديسا ومعاملاته يدقن كأودتك كلا دقميو أخلاق هذا يدقن كاغا يو معاملات كاغا وإن الدين تو كم مغطو سأل الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله وحولي هاي صلاة وحاد أغاتا وحي خيبتا منكرك يفحشك هذا صلاة تكتو وفيرسو صلاة دي بات تكتا لكن وزني سنيسا صلاة دي بات تكتا خمرة دي بالعبيسا صلاة دي بات تكتا بدكي بالحمنيسا صلاة دي بات تكتا خيبا العنيسا صلاة دي بات تكتا درس كيبان كان بتقل أطيريسا صلاة دي بات تكتا عرب كاقل لقمان بتقلو صلاة هذا صلاة معها وحبك بالجيران من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر قف كان صلاة دي صحمانته المنكر ككريب فلا صلاة له صلاة دي وحبك بالجيران وحبك بالجيران فيري ننبع عمر أيمد رضي الله عنه عمر بن أيمد نكا وحال الربا عمر وحبور ربا إنه أبيبه أو كأمانستو ضمانة إنه سمايو مركزو حياي يقانا ننكان ننبا وحيري أنا أقانا بغصدا فيريا ننبا وحي أنا أقانا عمر با وحوكي لعلك جاره الأدنى وحادر كرت إنا تاي درس كي سدو مدرس كي سدو باتها مركزو وحيري مايا لا مايا مايه درس كي سدو مايه سي لعلك وحادر كرت رافقته في سفر إنا سفر كل رفيق ذي والله سفرتي وحير مايا
وحير عمر لعلك وحادع كرتبو يري عاملته بالدرهم والدينار إن شيلنك ذهبك إيا شيلنك في الضبأ أتكل معاملاتي أو نقال إذن أحمر يبقى دعكرته إنك وحير لا عمر وحيري لعلك رأيته وحدعكرت إن أركتي يرفع رأسه تارة ويخفضه أخرى سوى مرة مدح كرو قاضية مرة هوس دقية سوى سجودية أو ركوعية بعد أركتي فظننته وحال ليسي صالحا نوناكسا سوما قاسوا نعم سوى متقاني صلاة كما ترجمة يسبو يري قف كان لقن كيسا وحال روا قفك إنا تقاني ميقات تكنيسة أو ظالمة وحال كيسا قف تكنية أو أوية أو تهجد كي تكنية أو صلاة الليل كي تكنية أو مركة إمامك قرآن كأقرية أو هنتي صلاة الله يابيو أو صفقة ورا كتيرة أو مركة صدق الله استعامة في الرئيس كمان $9 بحنية أو هدنا صاحبة ديسا أي كقيليان أو درسكو كقيليين أو قرابة كقيلسي أو جناعسك خيانية أو توق أو مركة أرتيد توق لغا يابيا وهكذا وسبحان الله نو حاجري بري والله وقصر رنأ ومن اللي يقان كان أقول قربوا لي هاي محمد إيه قميص وطا صلاة مركو تكنية والله يابي ما أنتو أن خشوع دا دين تكم وقطع دادك أوه يابي دادك حمر جوج جري أو ذا داد إيه أهن جوج أوه يقانا داد لما يقانا قبر وذات أهلو قوريه نين كان لما يقان وحال أركي أسوه بساعته كجرة أو سانا قبرني خير كودي قبرنا وش كان صديق خير كودي با ذهب يا ألاب با قبرني لو قبل سفي عم با لو أقل جاي ولا أقلي أصوحو أكتجرين يا نوداد أو خطر أو مؤمن أو صالح لكن أو حبايسن والله كوال عاوي همينك أراسك فيري بوينتو ذهب كيو أنك حريم أقوي وسبحان الله قفك كورما سفر بو قال وعرري سفر كي مركو عرري حمر بو كعري وقويقو عرري بابور بو ضل راعي بابور كمركو حاسارا قبر قناعستا او لعق في عن وضتا او حجابا او هيرودينا نين كان ماتو القرآن بو أخرنايا تسبيح بو أخرنايا وحكم مغضى خيرك وديابيسا همين كيب على السيحدي بلدوين على السيحدي مركي الله السيحدي ماشي تند كنت شيء اللي وضلك كتال تند كنت شيء على السيحدي يا وحي استري دادكو مركا ميل هوتيل سريره اسكا بنانكا يالو اسكا عادي او ميل دوك عملها دادكو استادين جرين يا وحي استري عاوة والو دعايا ذهب يلا عقب بي قبضو بورسك وضتا على بدن بي وضتا وحي استري يلا عقتان حقيت لا آدا مسيحانك تو سوجيدا نين كاني مركي دادكي سيحدين مسلاة الليل لا استاقي همين كونا مرتو كذا وأوهيا قرآن بو أخرينيا يودي مركا وحي استري نين كان سان حوغا انت ألابت أدي بتسيحو وحي تري شيخو وعاو لما أسئلة اللي هي ألافي عمبا وطاية ألابتان إيه هاي انتان تكني انتان سيحانا يا حوغا وهل كان اسكا ديق ولا خير الله كسي أنا كوارديني ماشي وعدكت واتكني كما دي حوغا مركي سوجي الدوي هرد الله تكت انتو قاطيبو باور كون عاي وضد مريي وعرري قبل الصبح بيسوكا على ولادك أو مجو ولاد ما هو توقو قميصي عامات صاحرته يقرل صباح وعرري هذا هلني وحا سميني أقو هرقيسو تغي هرقيسو مركو تغي بيدنا ولادو نين مسكين ودادها نو يميدو واسو دوينين ودادا با كايسا حير دكان كيو كدعي هير وحو غاري إلا إثيوبيا نينكي marka la taasgaray wadadiisa la raacay oo inta dadka dhacay intaana wuxuu ku dhacayaa oohin iyo khushuuc iyo salaad wa xadiidka Umar waay oo leeyahay ninkan ma jarribtay ma taqaana dhaqankiisa meeqeed tukanaysa oo cibaadaysanaysa oo hadana markay dhaqmayaan arkiyaabis ikhwaani cibaadada waa wax fiican adii alla idinka dhaxaysa xaqiiqo waay waxa muhiimka annaga noo waxa waaye aqeedadaada يا عبادة هذا إن تكررون شاكتين لكن كأدتك كل رقم يسوع الدين المعاملة دين توا لكن تتكبرون كل هذا وحيكونوا لين وحلة ازدواجية وحل هذا واسبرين وكونترديكشن لكن كي يوم مبادئ دي سيبا استقهر إمامي
والله يا بيسا قف كان علمه دليا وددك بابئنيا ودمرك دليا وكفصانيا وهذا مسلم كشاغنيا ولليه هو مسلم ونقدن استواجي واي وحاد عضي وحيالها دعيبها وحكمدا قبر كريشتان قال عدان أواي أيها وحاش كان سوي ويل أن يرأه الصوماليا مسلم مرة شو كان سوي يا وحي كتري وكو قرسانيا قربا الوهشي هبرتي بوشاغي سيتري هدينا إسلامين مكيني كرت قرقي وشاكد عادي أقو هدينا إسلامين قرقي مكيني كرت قبل إسلامي ماذا أقشيكي ويرهوية وحي تري هدينا إسلامين مقرسان كرت قبل ناس سيتري هيو بالدين تأيشرح كاسو وحو كاني كتاب قرآن وترجماته وحو كاني كتابة translation English في عن وحو الدين تواتنا سواء آخر سوء قوان سوء قار إسلام مركزة اسكو سنينا لما بلاد بيقادت انت هاتي دين تأخرينيس مركز صوت لما يسيو اتمت وحيكون تري دين تاني قفك اي كهض ليسا اذيقا معها وحان ربا قفك الدين تاني السفينيسو ودقن كان دين تانله بان رباية كان بيتي كاسان قرسانية أذيكم قرسانية ازدواجية وكونترديكشن وحاسكور إيمانية وإسبورينية دقن كاني يا مبادئ ديني دقن كاني وكالتشر كي قفك وكل دقمية وكم موغدي يا عقيدة ديسي يا إسبورينية مسلم باقفكاس أو يددك بلنت أوفين جري runta ka sheegi jiray daacadda ka muuqatay maalmaha kamida Abu Hurayra waxa dhici karta atharkan Abu Dharr waa laga sheegaa saxaabi Abu Dharr waa laga sheegaa laakiin aniga atharkan akhriyay waxa weeye Abu Hurayra waay yaa wuxuu maqlay masaajidka nabiga ee Madiina sallallahu alayhi wasallam banaankiisa buuq ka yeerayo maqlay dad buuqayo wadhahay uu soo baxay dad wuxuu yimid buuqayo isku buuqsan bal qisadan dhageyso oo dhaqankeeda fiiriyo caruurtaada iyo ehelkaaga iyo dadkaaga u dardaaran oo ka run sheegade wuu soo baxay war maxaa dhacay waxaa lay nin reer baadiye abaa yimid oo geel wata hal buu wataa hashiisii waa halkaa ku xirtay markaasuu seexday hashii baa beertaa gashay beertii bay daaqday geedii bay jajabisay ninkii beerta lahaa baa arkay wuu dilay hashi ninkii reer baadiyaha wuu soo kacay wuxuu arkay hashii oo bakti ah waa xanaaqay waa isdabamaray faas buu qaatay ninkiibuu qoorta ka gooyey ninkii baa la xirxiray reer Madiina isugu tagay ninkii waa la xiray wiilashii ninku dhalay baa jooga Abu Hurayra markii la yimid yaa waxaa la yidhi ninkan buu dilay waxaana la rabaa in loo qisaaso oo la dilo wiilashiisiina waa kuwana ninku waa nin reer baadiya lama yaqaano magaciisa lama yaqaano qabiilkiisa meeluu ka yimid lama yaqaano markaasuu ninka calaacalo wuxuu yidhi war niman yahow caruur baan ka soo tegey hawlaan ka soo tegey dad baan u soo maqnahay waxaad i siisaan muddo yar aan baxo aan dadkayga u tago aan ammaanaadka iska celiyo aan caruurtayda u dardaarmo waan soo noqonayaa ballan baana qaaday inaan soo noqdo maalin heblaayana waan idiin imaanayaa way ku qosqosleen yaad khiyaanaysaa trick wey waxaas waadna trick garaynaysaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa la yidhi haddaad noo keentay qofku damaanad qaada waan ku sii daynaynaa Abu Hurayra wuxuu yidhi anaa damaanad qaadaya ninkii intuu dadka fiiriyo wuxuu yidhi waddadow yaa i damaano qaaday Abu Hurayra wuxuu yidhi anaa ku damaano qaaday waxay dhaheen Abu Hurayra ma og tahay ninkan hadduu imaan waayo inaan adiga ku dilayno wuxuu yidhi haa waan ogahay Abu Hurayra wuxuu yidhi orod bax danahaaga soo dhammaysto maalin heblaayaa ballan noo ah ninkii wuu baxay maalintii baa la gaaray ninkii lama hayo Abu Hurayra loo yeeray wiilashii ninku dhalay waxay dhaheen Abu Hurayra adoo saxaabi ah oo Nabi Maxamed saaxiibkiisa ah oo saxaabadii nabiga ah baa waxaad rabtaa inaan ku dilo ninkii aad sii daysay oo tira anaa damiinka ah lama hayo adaa lagu dilayaa maanta oo ogow Abu Hurayra wuxuu yidhi laa xawla walaa quwwata illaa billah hadda maxaan samaynaa wax la sameeyo lama garanayo waa in la dilo iyadoo buuq hadalkii socdo
ninkii oo daahsan oo faras wato oo kacaya baa halkaa ka soo baxay oo isla ka gaar intaa qorraxdu dhicin waa casarkii sababta waxaa leeyahay haddii maalinta qorraxdu dhacdo waa khalaas ninkii markuu soo istaagay isagoo neeftuuraya baa dadka isfiiriyeen waxaa la yidhi horta kow abu hureyrow maxaa kugu khasbay ninkan inaad damaano qaado ma garanaysid wuxuu yahay ma taqaanid meeluu ka yimid ma taqaanid markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka baqay in la yidhaahdo almuru'atu wallat ahlu lmuru'ati wallow dadkii muru'ada lahaa ee dhaqanka wanaagsan lahaa way dhammaadeen in la dhaha baan ka baqay wiil maanta qof muslima oo dhahaya yaa i damaano qaada in qof damaano qaada la waayo oo la yidhaahdo dadki way u dhammaatay baan ka baqay wiil waxaa la yidhi ninkii war adiga ma doqon baa tahay waa lagu daayey iska bax baa lagu yidhi soo noqaa lagu yidhi magacaaga ma naqaano qabiilkaaga ma naqaano meel aan kaa raadina ma naqaano maxaa ku soo celiyey balaayo qabay maxaa soo noqotay midil baa soo doonatay wuxuu yidhi waxaan ka baqay in la yidhaahdo ahlulwafaa'i qad wallow dadkii ballanta oofin jiray way dhammaadeen in la dhahaan ka baqay wiil dadkii ballanta oofin jiray way dhammaadeen in la dhaha ayaan ka baqay wiil markaasuu yidhi yaa la yidhi wiilashii ninku dhalay yaa waxay dhaheen annaguna ninkaas ilaahay dartii baan u cafinay waxbana kama rabno aabbaheenna allah u naxariisto waxaanan ka baqnay in la yidhaahdo ahlulcafwi qad wallow dadkii dadka cafin jiray way dhammaadeen in la dhahan ka baqnay fiiri away cafiskii away asturkii dadka la asturi jiray away oofintii ballanta la oofin jiray away muru'adii iyo dhaqankii la ilaashan jiray away beentii laga xishoon jiray away axaadiistii iyo qur'aankii iyo aahaartii iyo sunanka maantood aan akhrinayno iyo tacriifaadka aan leenahay markaan taqwada ka sheekaynayno taqwadu waxa weeye alkhawfu min aljaliil allah oo laga baqo alla ka cabsigu waa maxay inaad rabbi ka baqdo iyo walisticdaadu liyowmi alraxiil inaad u diyaar garowdo maalinta aad dhimanayso iyo qabriga keligaa ku sugaya inaad u diyaar garowdo iyo waridaa bilqaliil waxa yar oo alla ku siiyo xalaasha inaad raalli ku noqoto oo aad ku qanacsanaato oo raalli ku noqoto weye taqwada aad maqlaysa waa intaas waa inaad wixii alla ku siiyey aad ku qanacdo oo alla aad ka baqdo oo qiyaamada aad diyaar u ahaatid oo aad dhimashada sugaysid oo aad isqowraysid oo is-ilaalinaysid waay sanadooda ahlulcafwi ahlulmuru'a dadku shakhsiyad bay lahaan jireen qiimay lahaan jireen way is-ilaalin jireen way ilaashami jireen away dadkan caytamaya oo iscaayaya oo aad leedahay maxaa dhacay oo akhlaaqdii dhimatay miyaadan ogayn nabigu sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa ayuu nebigu wuxuu ku imaamu tirmidi iyo keyrkii ay wariyeen lafdigan imaamu tirmidi baa leh buu nebigu saxaabadu la hadlay waa asxaabtiisii wuxuu yidhi atadruuna malmuflis ma taqaanaa qofka cayrta ah shiidka qofka ma taqaanaa qof shiidsan ma taqaanaan yaa weeye qofka shiidka ah waxba aan haysanin sideen almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac annaga muflis waxaan u naqaanaa qofka aan shilinna haysanin waxna alaab aan haysanin ee waxba aan haysanin wuxuu laa maya المفلس قفك مفلس كأوحال يرادا من يأتي يوم القيامة بصلاة وقف الله إيمانا يا صلاة بدن وصيام يا صوم بدن والله إيمانا يا وزكاة يا زكاة بدن والله إيمانا يا ويأتي وإيمانا يا وقد شتم هذا أصدق قفك عاي وقذف هذا أو قف كان زنا يحمان كطوري فيري وضرب هذا أو مت كان ضرباحي أما قراعي وسفك دم هذا ومد كان إيكي سي داديي وأكل مال هذا مد كان مال كيسي عني فيعطى هذا من حسناته حسنات كيسي الله قادي وضدك الله قيبا يا وحكوش والله انت اللي سو استاجي الله ورتيسا يا وحال لي هاي هبل يا وحكوش يا جني يو عايي يو ضري يو تهمي يو حضي يو كبان أبورتي يو درباحي
يو عيال كيسا إهانيستي يو قبيل كيسا عايي يو حوله عني يا وحكو شاقني سبحان الله سبحان الله dadkii baa soo tuuranaya nin walba wuxuu rabaa maalintaas hal xasana dhibic in la siiyo rabaa kullu waahid mid kasta wuxuu raadinayaa hal dhibica oo xasana ah in la siiyo xasanatan tarfacu darajaat wa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa maalinta uu qofku ka cararayo in adeerkii walaalkii uu ka cararaya wuxuu ka cararaya hooyadii iyo aabihii wuxuu ka cararayaa xaaskiisii wuxuu ka cararayaa canugiisii aayadda quraanka cajaa'ibteeda waxaa ka mid ah waxaa loo hormariyay walaalka sababtoo marka aad u baahan tahay inuu garab istaago walaalka ugu khatarsan in adeerka iyo walaalada baa lagu dagaal tagaa waxaa ku soo xiga aabaha waxaa ku soo xigta hooyada waxaa ku soo xigta xaaska waxaa ku soo xiga ilmaha say dadku u kala sokeeyaan wey say u kala marka loo habar wacay si loo kala habar wacdo wey يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مكاسا حسنات كلها قيبينيا يا وحكو شيغانيا هبل 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 ما كان الله قيبيو وحو النبي صلى الله عليه وسلم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه انت أن لقد ما يسترين وحا لقول يا دي حسنات كيسيت ما يستو أخذت سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار انت الله سوق هذا حمان تودي والله الدول صاروا بالنار تلو التورا سبحان الله عرب كان اسكفرا يا عيدا اسكسعتا وانت اوقف كعيدي فيسبوك سناب شات باللغوصة استاجنيا نعم باللغوصة استاجنيا والله باللغوصة استاجنيا حتى متكات كومنت كو عيدي واد كومنت قريس وليها كان دقن كان محوها اسكدا وحكل do you think waxaad u malaynaysaa dadka cirdigoodu inuu free yahay maya ma jirto yaad dishay yaad qadaftay yaad cayday see dadka ula dhaqantay addiinu almucaamala diintu waa dhaqan ikhwaani diintu waa dhaqan nabi sallallahu alayhi wasallam almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadi muslimku waa qofka ay dadku ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa seen muslim u nahay markuu aabihii canugiisii uu si u jirdilaya uu dhimanayo seen muslim u nahay markuu xaaskiisii ay kala tageen intuu ceejiyo qofku uu dilayo seen muslim u nahay markii qofku dadkii muslimiinta ah dhiigooda uu banaysanayo ee uu laynayo subxaan allah maalin dhaweed waxaa ka dhacay baled xaawaad ogeydeen dad muslimiin sheeganaya baa madaafiic magaalada saa ugu horgufay waxaa la yidhi lama garanayo ma qolada dowladda mase waa qoladii dowladda ka soo horjeeday baa lama garanayo matac baa wuxuu ku dhacay reer hurda oo maskiin abuu ku dhacay afartii cunugna waa dhimatay hooyadiina isbitaal bay ku jirta madheera ku yaalla ma hooyada ka warran maxay kasbatay وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت waxaa la weydiinayaa midii la dilay maxaa dambi oo lagu dilay baa la qiyaamada ma aqaano maxaa la igu dilay ilaahay oo weydii kana idilay muxuu igu dilay maxaa lagu dilay afarta cano oo saqiirka isla dhashay oo mid 2 sano jiray maxaa hooyadood lagu dilay maxaa dhiigga lagu banaystay maxaa dadka caydooda ku banaysatay maxaad ku banaysatay xaaraanta iyo ribada aad cunayso maxaad ku banaysatay maxaan u sheeganaynaa muslimiin ah dad muslimiin ah oo xajinaya oo xijaaban oo quraanka akhrinaya oo caruurtooda quraanka xifdiyeen oo isxastay oo isnacab oo isdibsanaya oo iscaayaya oo shaha isku caba oo carabkii u sakala nabad galaynin oo waxa kaaga daran qofkii dambiga galay aan lagu marxaati ka caynaynin inta la garab istaaga la leeyahay waa reer hebele maxaa loo taabanayaa waxa dhacda qofka midka mujrimka ee gabdhaha kufsada waa la dhoofiyaa midka dilay waa la dhoofiyaa lacagta loo aruuriyaa maxkamada loo qabtaa muslimiin baana sheeganayna diinul mucaamala diintu dhaqankeena ha ka muuqato ikhwaan diintu dhaqankeena ha ka muuqato dhaqanka xataa qisa waxaa jirta cajiib ah qisadaana ku soo dhamaystiraya nin tuug ah had fiiri dadka waa tuug ogow oo gangistera yaa waxaa leeyahay wuxuu training siinayaa mid yar oo tuug kala ah oo saaxiibkii ah oo expert aan ahayn
marka bas baa la soo galay baska dadkaa la jeeb siibayaa wuxuu leeyahay kaa muujeedaa ha qofka waxaan ku tusayaa inaan ka qaado lacagta uu ka soo qaadaa marka dambe wuxuu arkay nin oday oo calool weyn oo cayiran oo meel iska fadhiyo oo jeebkiisa waalad ku jiro oo waaladka lacag ka buuxdo suuye kaas fiiri wansa kamaal kaga qaadayaa lacagtii uu dhag ka soo siiyey uu ka soo qaaday saa waxay fadhiisteen kursiga dambe ee baskay fadhiisteen kursiga ugu dambeeya ee baska bay fadhiisteen lacagtii baa la tiriyey saasaa loo kala dhigay suuye muujeedaa waxaana lacaga wansa kan baa ku soo qaaday kii yaraa waa yaaban yahay waaladkiibuu markuu lacagta ka soo bixiyo lacagta la fiiriyey buu dhinacii kale waaladkii furay saa waraaq yar baa ku jirta waraaqdii buu saa u kala furay waraaqdii markuu saa u kala furay waxaa ku qoran allaahuma axfad lii maalii ilaahu maalkayga ii ilaali waa ku qoran ilaahu maalkayga ii ilaali intuu waraaqdii isku laabay oo ku celiyey waaladkii oo lacagtii qaadoo waalidkii ku celiyey buu ninkii intuu u ag istaagay buu jeebka u geliyey weliba wuxuu tusay inay ka dhacday camal wuxuu oo waaladkaana kaa dhacay jeebka gashay jeebka u geliyey markuu jeebka u geliyo gadaal fadhiistay kii yaraabaa wuxuu ku yidhi war waxaad ogeyn oo lacag a maxaad ninka ugu celisay maxaa dhacay suyniyaho waxaan ka baqay ninkaasi malaha uu ilaahay ku qabo iyo ducaduu ducaystay inuu ku khasaaro oo uu si khaldan ilaahay u fahmo baan ka baqay markaasuu wiilkii intuu ku jeestaybu wuxuu yidhi ma og tahay annagu dadka xoolahoodaan dhacnaa xoolahoodaan xadnaa laakiin diintooda ma xadno subxaan allah fiiri dadka xoolahoodaan xadnaa laakiin diintooda ma xadno ninkaa tuugga a fiiri muruu waxbuu ilaalinayaa wuxuu ilaalinayaa qofkan maskiinka ee ilaahay bariyey in baryadaa intuu ku qado uu ilaahay mala xun u maleeyo intaasaa qalbigiisa celisa markaasuu lacagta u celiyey waa tuug ogow innaga waxaa dhici karta mid sujuudaya oo rukuucaya oo qur-aankii akrinaya baa ilmihiisii dilaya oo hooyadii lacag ku qaadanaya oo xaaskiisii si xun ula dhaqmaya oo carruurtiisii kuwa gaaja carruurtooda dishay oo soomaaliya sare ka dhisanaya arkaysaa guryo waaweyn ka dhisanaya carruurtiisiina gaajaa dishay welfare bay ku nool yihiin muxuu gurigu taraya maxay beentu tari maxay khiyaanadu tari maxay inkamka xaaraantu tari hadduusan qofku waxba ilaashanaynin tuuggaa wax ilaalinaya tuugga baa wax ilaalinaya u shaqa tagay inuu xado adiga maxaad waxa u ilaalin weyday war qofka ahludiinka maad ilaalisid oo qofka deriska maad ilaalisid oo gabadha xijaaban maad ilaalisid oo qofka maskiinka waayeelka maad ilaalisid oo qofka indhoolka maad ilaalisid oo agoonka maad ilaalisid oo kan qur-aanka baranaya maad ilaalisid oo macalinka qur-aanka ku baraya maad ilaalisid oo soo qalbigu soo wax ma ilaalino miyna damiir lahayn marka masaajidka la tuhmayo oo culimada la tuhmayo oo deriska la tuhmayo oo qof kasta la caayayo oo la isxastayo oo wax la iska sheegayo oo qabaa'ishii la durayo maanta dhan oo shaqo laga dhiganayo qofka dhaalimka miyayna gacanta qaban karin oo inaan dhihi karin tuug weeye ciduu raba ha ahaado qabiilkaaga ha ahaado waa tuug miyaada dhihi karin waa khaain dambiilo weeye ha la qabto ilaahu muu wiilkaaga ahaado ilaahu ilmaha dhashay mu ahaado ma dhihi karin miyaa waa dhaalim ee ha la qabto waxaan ku soo khatimayaa kelimadan innagu waxaan leenahay mabaadi waxaan leenahay caqiido caqiidadaas iyo mabaadi'daasi waa inay dhaqankeenna ka muuqdaan oo dhaqankeenna dadka gaaladu oo ay ku soo islaamaan naag yahuudiyada baa nin imaam ahoo masaajidka ay deriska la tahay imaamka abay waraaq u soo qortay markaase waxay tiri imaam waxaan akhriyey bay tiri diintiina waxaana ku qoran nebi moxamed inuu soo booqday wiil yar oo yahuudi ahoo dhimanaya oo uu ku yidhi wiilow laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah dheh naartaad ka badbaadaysaaye oo wiilkii uu yidhi oo uu nebigu ku farxay oo yidhi ilaahay waxaa mahadle naarta ka badbaadiyey waxay tiri ma aanan maqal xadiidkaasna ma sheegin inuu nebi maxamed wiilkaas la dooday oo uu qanciyey oo uu wax u sharxay ee wuxuu ku yidhi keliya laa ilaaha ila allah dheh wiilkiina wuu yidhi waxaa ka muuqata bay tiri wiilkani waa wiil nebi maxamed yaqaanay oo jirrabay oo yaqaanay who is he wuxuuna ku qancay dhaqanka nebi maxamed ee wuxuu sheegaya keliya ma ahayn waa nin hore u yaqaanay bay tiri oo uu ku qanacsanaa anugu maanta wax aan ku qanco
وأن إذن كأركي أو دين إسلام كإيجعلي سيسا وهدان إيماني هدان لا إله إلا الله أنه لها إذن كما أرك بيتري ما أنا إذن كأرك بل dadku waxay aaminsan yihiin dadka beenta badan oo musuqmaasuqa badan oo saan ah inaga nahay aaminsan yihiin ilaa ninkii uu yiri markaa wadamada gaalada tagtid bi waxaad arkaysaa dadka muslimiin aan islaam haysanin maana gaaladu waa muslimiin buu yiri dhaqankooda laakiin islaam ma haystaan wadamada muslimiinta markaa waxaad arkaysaa buu islaam aan muslimiin lahayn diin baa taala laakiin dhaqan ma yaalo culture keena fiiri dhaqan keena fiiri annaga waxaan haga waxa waaye mabaadi'da iyo caqiidada dhaqankeena waxa weeye qofka dhaalimka ah waa in laga hor yimaado looma fiiriyo qabiil looma fiiriyo saaxiibtinimo looma fiiriyo wada dhalasho dhaalimku waa dhaalim midka madluumka ee la dulmiyeyna waa in la garab istaago looma fiiriyo qabiil looma fiiriyo kalar looma fiiriyo wada dhalasho waxaa loo fiiriyaa waa madluum baa loo fiiriyaa qof walbana qofku ka diin badan yahay oo ka akhlaaq fiican yahay oo ka dhaqan fiican yahay baan ka jecel lahay hadduu yahay kii nala dhashay iyo hadduu yahay mid aan nala dhalaninba walaaltinimadana waxa ugu qaalisan oo ugu qiimaha badan waa midda ilaahay dartiida aweeye ilaahay dartii baan idiin jeclahay dhammaantiin جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا